waxaa jira la dhaho tusaale ahaan waxbaa kacsan mar waxaa jira muujad ka kacsan tahay dad baa ka faa'iidaysta muujadaas ingiriisku marka aragtida soomaali weyn sidaba uga faa'iidaysanaya ingiriisku dad baa waxay dhahayaan ingiriiska ayaa abuuray ama aasaasay maaha ingiriisku ma aasaasay laakiin saan soo sheegnay maadaama ingiriisku ka horeeyo in badan oo gumaysi ah wuxuu isku dayayaa aragti uu soomaali dhan ku maamuli karo oo hoos ku keeni karo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqif ahaan hoos ku keeni karo waxa ugu yar dad adu aad leedahay ama aad samaysatay kuu samayn karo waxaa weeye marka qaramidooda la tago inuu ku codayaa meesha marto u raaco marka xilligii 8 sano ee koonfurta Soomaaliya maamulayeen waqooyigana maamulayeen NFD-na maamulayeen ayaa ingiriiska waxa u soo baxday haddii ay Soomaalidu ku qanciyaan in iyagu wisaayada gaarsiiyaan iyo xorriyadda in ay Soomaali dhan maamuli karaan oo hoosta la imaan karaan waxaa la isweydiinayaa marka war ingiriisku iyagaa dadka kala googooyay markii hore iyaga waaba dowlad lagu yaqaano farriq tasud qayb oo xukun lagu yaqaanee maxaa dalo ugu jirta in ay Soomaali ay mideeyaan markii Soomaalidu la isu keeno 4 gobol haddii Djibouti laga reebo 4 gobol haddii la isu keeno waxay noqonaysaa mid ka mid ah haddaysan u ahayn dhulka ugu weyn ee dowlad Afrikaan ay leedahay waxay noqonaysaa dhulka ugu tanawuc yani kala duwanaansho haddii noqoto buuro haddii noqoto webiyo dhul beereed macdan cimilo ayay noqonaysaa waxay noqonaysaa awooddii Soomaalida hadda haddii gacanta laga gooyo hadda waxyaabaha dowladnimada Soomaalida u ismilaadahay waxaa waaye waa dad kala go'an badee marka wuxuu leeyahay dhul intaas la eg haddaad Commonwealth ku soo biiriso ingiriiska hoos tagaan waxaad noqonaysaa macnaha dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan meesha ku yaalana fiiri badda ilaa badda caas ilaa khaliijka cadan ama gacanka cadan ilaa iyo badweynta hindi wuxuu fiirsaday marka aragti ah intaas haddaad isku darsato waxaa kuu soo baxaya dhul weyn ku dar Soomaalida waxa keli ah muusiga loo garaaci karo waa maxay maanta waa in midaynaynaa saa darteed wuxuu leeyahay qoraaga waxyaabihii ugu badnaa ee ka bixi jiray radio Hargeysa wuxuu ahaa aragti lagu taageeray Soomaali weyn xilligaas yada xilliga ingiriiska radio Hargeysa waxa ugu badan ee laga sii deyn jiray wuxuu ahaa in la taageero Soomaalida Soomaali weyn la taageero aad loo xataa ka garan kartaa markii xorriyadii la siiyay dadkan Soomaalida oo markii horeba Soomaalinimada rabay inay midoobaan iyo isticmaalkii oo wixii waxa la dhahaa waxaas oo dhan ku rib loogu dhuftay salaad adoo xag rabay lagu ceeriyo hadii xag u ordo Soomaalidu rabay inay midoobaan oo walaalo noqdaan oo dalkooda dib u midoobaan iyo dawladdii haysatay gumaysiga oo ku kaalmaysay in dantoodii ay ka shaqeeyaan dadkii waqooyiga waxay aad ugu horeeyeen siyaasiyan dadka koonfurta aad ugu horeeyeen ha ahaato ingiriiska gumaystay oo waxbarashada u ogol iyo haato ingiriiska oo wixii uu rabeen la doonayay saa darteed markii waftigii 60kii imaadeen Muqdisho dadkii koonfur ay u imaadeen way la yaabay isfahmi waayeenba laanta koonfur ku nool wax ilaa yoomina hada dadka koonfurta Soomaaliya ku nool kala go iyo midow wax rasmi ah oo ay kala yihiin ma jirto mowqif rasmi ah oo xaqiiqi ah oo ay kala yihiin ma jirto markii nimankii imaadeen Muqdisho way yaabeenba yani waxay u imaadeen dad aan garanaynin bawr in la midoobiyo in la midoobin in la kala go in waxay tahay aan garanaynin ama aan aysan ku haynin ba wax ay xamaasada sadarta waa kala haya markay Muqdisho tageen dhowr maalmood ayay ay qof la kulmaan oo maxaa rabtaan in la midoobo oo dadka waciga mayn haynin tan maxaa sababay Soomaalida oo rabtay aragtidan iyo wadankii gumaysaday oo waqti galiyay in uu dhaho Soomaalida aan mideeyo kadibna aan xukumo waxa kale la mid ah hadii ay rabto in Soomaaliya ay mideyso maxay dhowr sano ka hor u siisay dhulka Soomaaliga galbeed Ethiopia dad buug Sweden waxa koow ka ah xitaa hadii Soomaalida dib loo soo celiyo hadda wadamada Afrika ka fiiri wadan kale aan xad ku haysan ma aragtay Uganda Kenya Soomaa Kenya Tanzania Ethiopia Somalia Kenya Djibouti Eritrea Sudan Masar Xalaayo Shalaatiin يعني دل عن دل كويس الملح مهمة waa maxay waa in Afrika aysan weligeed ka bixin dagaal qowmiyad wadan dhan oo aan dalka lagu darayo la dhaqan iyo la diin iyo la taariikh iyo sooyaal iyo wax ka dhaxeeya jirin oo weligood is arkin ayaa la isku dabaatay waxa laga filan karaa isma fahmayaan isma yaqaanaan meel isugu imaan isku weligood wax ka dhaxeeya ma laha waxaa jira waxa la dhaho
hay-ado iyo shirikaad waaweyn oo siyaasadda adduunka hagaajira afcali waxaa la korboqoratiya la dhahaa hay-adahaas waxay leeyihiin dhowr cawaamil ama dhowr wax oo awood siiya sida bangiga adduunka shirkadaha waaweyn ee tusaale ahaan singalarta haddaan kuu sheegaya ka mid a 1956 ayaa talyaani waxay sameeyeen shirkadda wakaaladda horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya ka sameeyeen muhiimaddeedu waa maxay waa in wax allaalo wixii khayraad ay soomaali leedahay la qaato inta hadda la maamulayo kadib marka ay xoroodana lasii xukumo waxyaaba la yaabka waxaa ka mid ah wakaaladda horumarinta ganacsiga yaa ka ahaa mataqaanaa mas-uulka saddex nin mas-uulka ahayd ka koowaad waxaa la dhahaa Mr. Donovan waa shirkadda Singaler ee Maraykanka ninka u fadhiyay Muqdisho ayaa guddoomiye ka ah waxaa la mid ah shirkadda Ajib oo shidaalka Talyaaniga ninka asagana guddoomiyaha ka ahaa ayaa ka mid ah Maraykanku waxay u soo direen markii shidaalka Soomaaliya la siiyey oo 40 sano ayay khubaray soo direen khubaradaas waxay Soomaalida isaga dhigayeen inay siinayaan dhaqaalo $200,000 bay geliyeen markaasaa biyo xireenno iyo jidad iyo waxyaabo lamid inay sameeyaan marka khubaradii la soo diray ninkii guddoomiyaha u ahaa ayaa asna ka mid ahaa wakaaladda horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya waxaa si siman u xukumayay 3 nin oo labada Maraykan yihiin na Talyaani bug aad u qurux badan ayaa buuga ku jira oo hadda buug intii Turkiga joogaan qoray aan kaga soo daray wuxuu leeyahay sideedaba isticmaalku ama madow ha ahaado ama caddaan ha ahaadee qofka Soomaaliga wuxuu ka rabaa see buu rabaa inaad ahaato macnaha see rabaa inaad ahaato waxay rabaan isticmaalku wax kasta oo jiritaan Soomaali u taagan in la burburiyo hadda soo laanaad badan ma jiraan hadday sii socoto oo sida iyagu rabaan la sii sameeyo magaalo kasta dawlad bay noqonaysaa sidii Andalus markii ugu dambeysay ee lagu kala carariyay marka wax weyn oo Soomaali ah oo jiritaankeeda horta in laga adkaado in la sameeyo ummad Soomaali ah oo aan lahayn dhaqan iyo siyaasad iyo dhaqaale iyagu ay leeyihiin ee raaca kolba dadka ay la nool yihiin in adiga aad samaysato dhaqaale la yaqaano siyaasad la yaqaano aragti la yaqaano wax anu aan leedahay may waa in aad mar walba la nooshahay ummado kaa awood badan kaa tira badan kaa dhaqaalo badan oo aad noqoto yani warqadan oo daad la raaciya aad noqoto waxay rabaa qofka Soomaaliga inuu noqdo qof u rukuuca wax walba oo asaga ka baxsan daciif ah daliil ah aad u hooseeya bukaas waa jeclaan lahaa qof kasta oo af carabi akhriyo inuu akhriyo inaan turjubana aad iyo aad loo jeclaan lahaa waxyaabo aad uga sheekeyn waxaa ka mid ah mas'alada luqadda ee Soomaaliga waxaan ku diidanahay inuu luqadda Soomaaliga ka soo qaadayo luqad aad u hooseysa oo aan taariikh lahayn oo aan xambaari karin aqoon iyo cilmi iyo fikrad iyo falsafad aan xambaari karin xitaa haddii la dabcay la turjubo taas waan kasoo horjeedaa oo waxaan u arkaa inay intaas xambaari karto waxaanse ku taageersanahay in Soomaalidu si ay luqadda carabiga ka rabeen iyo sidii gumaysigu ka rabay aad u kala duwanaayeen kadibna sidii gumaysigu rabay aan qaadanay Soomaaliga laatiin baa loo qoray waxyaabo la yaabka waxaa ka mid ah dawladda kacaanka way fariisatay waxaa la isku fiiri marka luqadaada laatiin loo bedelayo akhriskaaga dhaqankaaga ihtimaamkaaga rabita waxaas oo dhan dadka laatiinka qoraa isku mid noqonaysaan halka markaad dhankan loo qoro aad isku mid noqonaysaan inta xaggaas wax loo qoro soo maha waxyaabo la yaab kale waxaa ka mid ah luqadii Soomaaliga ayaa waxaa loo qoray laatiin 70 si rasmi ah usoo baxay 70 macnaheedu waa maxay loolan adag ayaa jiray Soomaaliga ma carabi baa loo qoro mise laatiin wuu soo socday go'aan waxay qaateen 2 sano kadib ayay Soomaaliya jaamacadda carabta ku biirtay waa wax isqaadan kari waa tanaaqud macnaheedu waxa waaye dood soo socotay oo dawladdii ka horeysay ee rayidka ay xalin weeday oo dawladii ka horeeyay ee wasaayadii ay xalin waayeen ayaad xal ka heshay macnaheedu waxaa tiri laatiin baa lagu qorayaa waa in aad shacabka marka u diyaariso in ay galaan aragti laatiin iyo English iyo adduunka xagga u guur 2 sano kadib ay dawladdii kacaanka waxay ku biirtay jaamacadda carabta markaas hadda dib intii loo soo laabtay ayaa Soomaalida in lagu soo daro carabi haddii boor la qoray in carabi lagu qoro wasaaradda lagu qoro carabi lagu qoro ayaa hadda dib dadkii loogu qasbay
waay aad shalay adiga aad dadka u dhuminaysay oo luqad laatiini oo xiriir iyo calaaqay waxba ka dhexeyn dood waxaa soo bilaabatay 55 ayay dooddaa soo bilaabatay markii 55 ayaa 2 nin oo Soomaali ah ayaa waxay tageen golihii majlis al-wasaaya ayay tageen waxaa weeye waa Cabdiqaadir Aadam oo ka socday xisbiga Digil iyo Brifle iyo Cabdirasaaq Xuseen oo ka socday SYL ayaa tagay labadan nin markay meesha tageen waxay dhaheen war anagu waxaan rabnaa in luqadda carabiga looga dhigo luqad rasmi ah Soomaaligana aan haysano dadka ku Brazil ku nool Portuguese baa luqad rasmi u ah luqada kale leeyihiin Kenya joogna Englishka rasmi ah luqada kale leeyihiin Argentine Spanish baa luqad rasmi ah luqada kale leeyihiin waxaan rabnaa in luqadda carabiga looga dhigo luqadda rasmiga anagu aan leenahay luqadda Soomaaliga waan haysanayna sababtoo ah waxay ku doodeen luqadda dawladihii marka diidanaa oo Belgium iyo Australia France New Zealand Mareykan Ingiriis Ruus waxay ku doodeen magaalooyinka waaweyn Soomaalida ku nool carabi way yaqaanaan wayna ku hadli karaan gobollada dadka jooga carabi yaqaanaan Cabdirasaaq Xaji Xuseen iyo Cabdiqaadir waxay ku doodeen iyaguna in qof kasta oo Soomaali ah meeshuu jooga meeshuu doon ha jooge konton shanta ka hadlaya oo luqadda carabiga ama uu qori karo ama uu fahmi karo haddii marka luqad rasmi laga dhigana ay sii soconayso adi dood dheer baa la galay aad baa loo kala duwanaaday waxaa ogolaaday in luqadda carabiga Soomaalida looga dhigo luqad rasmi ah Suuriya Salvador iyo Hindiya waxaa diiday in laga dhigo luqadda rasmiga Belgium Australia France New Zealand Mareykan Ingiriis iyo Ruus ayaa diideen waxay dhaheen luqaddaas lagama dhigayo hadafkuna waa maxay waxaa waaye haddii luqaddaas aad carabi qaadatid waxaad la wujdaan iyo dareen iyo fikir iyo aragti noqonaysaa ummad carab oo intaasoo 100 milyan ayaa la mid noqonaysaa kadibna waad ka guuraysaa aragtida hadda isticmaalkii waxan macnaheedu baad iga carabtu waa la gumaystaa laakiin ka fikir ahaan ka dareen ummadeed ayaan ka hadlaya waxayse ahayd nimankii noo dooray laatiin in marka day laatiin noo dooreen ay luqadahaas laatiinka aan si rasmi u barano soo ma ahayn oo rasmi nooga dhigaan maanta fiir qofka Soomaaliga mushkilad baa haysata qofka Soomaaliya wax ku bartaan ka hadlaya la English wala Carabi Carabina ma yaqaan English ma yaqaan qofka Soomaaliga jaamacad buu ka soo baxaya Masar buu wata PhD buu wata Soomaaliga ku soo qaatay qofka luqadii ma garanayo luqadii waxaan rabaa qofka inuu weeraan hal luqad oo si fiican u yaqaan waxyaabo ka sheekeynay waxa kamid ah Talyaaniga nin la dhaw waxaa jiray dhoo Filipini haddana khaldanayn oo ahaa nin dadka ka shaqeeya kaniisadaha ninkaas dawladda Talyaaniga oo taageeraysa ayaa kaniisadu u furi jiray Soomaali isku dejin oo gaalaysiin kasta oo gaalaysiin wuxuu leeyahay marka arrintaas aan uga hortagno dood dheer bay galeen buug waa buug aad cajiib waa 132 buug waxa waaye si yani murakkaz ah Soomaali uga sheekeynaya haddaad qofka carabi wax ku akhriyo waan kula talinaya wuxuu leeyahay marka Soomaalida ayaa noo imaaday waxay dhimniyahow gaalaysiin badan ayaa la wadaa waagi hore Catholic ayaa Talyaaniga ahaayeen hadda Mareykan markay soo galeen meesha Protestant iyo waxana dadkii lagu faafinaya waxaan u baahanahay in anagana awoodii aan kaga hortagno dawladaha malihin waxaan u baahanahay Azhar in waa mu'assasada islaamiga ugu weyn ku taalo Azhar yani jaamacad baa laga u naqaano laakiin waa ka weyn tahay jaamacad Azhar waxaan u baahanahay marka Azhar in ay noo imaadaan marka waxaan damacnay wafdi Azhar inaan soo dirno iyo dad Soomaalida bara xirfadda soo lahaan kalluumaysiga beeraha waxyaabahaas bara marka qofka Masar laga keenayo fiisada waa in laga soo qaato safaaradda Talyaaniga ee ku taal Qaahira wixii safaaradda weydiiday fiisada kiisiso sababtoo waxay dhaheen culimo islaam faafinaya ma tagayaan inkastoo adiga waagii dambe loo ogolaaday waa la dilay ninkii ahaa Kamaaldiin Salaah waa la dilay waxyaabaha lagu dilay marka waxaa kamid ahaa Talyaanigu waxay rabeen doorashadii dhacday 1900 iyo dhowr iyo dhowrkii saan filayo boqolaal axzaab baa ka qayb galeen yani dhowr 8 xisbi la sheegaa marka qaar tirada rasmi ma laakiin wax aad badan ayay ahaayeen oo kulli wada qabiil ku dhisan aragtida waxaa ka dambeeyay Talyaani in reer walba iyo qabiil walba uu yeesho xisbi siyaasi oo iyaga matala sida maanta reer walba ay u leeyihiin dowlad goboleed ay leeyihiin ama dhowr reer isu tagay ay dowlad goboleed leeyihiin ninkii marka fikraddaas abuurayay waxaa la dhahaa Frank la dhahaa wuxuu ahaa nin doctor ah wuxuuna ka shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo wadamada xukuumaystay wasaaradda isticmaalka ay lahaayeen oo wadamadii wasaaradda mustacmaraad waxay ahayd wadanka la gumaysan Soomaaliya oo kale wasaaradda xogta Soomaaliya ay gumaysan jirtay
eritrea ayay gumaysan jirtay, libiya ayay gumaysan jirtay. marka wadamada talyaanigu gumaysto dhan xogtooda wasaarad keenta oo laga helo maxay u baahan yihiin, maxaa kala dagaaladaan, maxay dhaqaalo haystaan. wadaad mustacmalad ayaa ka shaqayn jirtay. marka wasaaradaasu xilligii faashistiga ayuu wasaaradda ka shaqayn jiray frank. ninkaas ayaa wuxuu keenay marka aragti ah in soomaalida loo sameeyo qabaa'il axzaab ah. waxaa jira u leeyahy marka qabaa'il taageeray sida digli breflet tusaale ahaan. haddaba soomaalida waa federaal soo maaha. dadkii u horreeyey ee soomaaliya inay federaal noqoto curiye ama keena waxay ahaayeen digli breflet ahaayeen. waxay soo arkiyeen inay soomaali kale ka duwan yihiin si siyaabaha ka mid ah. hadday dhex galaanna ay ku dhex milmayaan ama ay iswaayayaan. dadkaasaa marka iyo dad kale oo soomaali ah ayay kiciyeen buu leeyahay buugu. kadibna waxay sameeyeen axsaab siyaasi ah. waxaa arrintaa diiday oo ka soo horjeedsaday kamaaldiin salaax iyo iswaa'il. iswaa'il orkay inay yihiin xisbi siyaasi ah oo soomaali dhan matala. haddii xisbi kaloo siyaasi la samaynayana inay ajendo rasmi ah oo iyagu ay leeyihiin ay la imaadaan. wuxuu leeyahy doorashadii 1956 halka xisbi ee lahaa ajendo qoran oo siyaasi ah waxay ahaayeen iswaa'il. ajendaduna wuxuu ahaa kow in la xoreeyo dhammaan gobollada soomaalida ay leedahay ee maqan in la xoreeyo. 2 in diinta islaamku ay tahay diinta rasmiga ah ee dowladda. 3 in dhammaan ururada siyaasiga ee jira ay midoobaan oo heshiiyaan si dowladda soomaaliya iyo soomaalida loo mideeyo. 4 inay soomaalidu tahay gobol ama qayb aan ka gu'in oo rasmi ah caalamka carabta iyo islaamka. 5 in luqadda carabigu ay tahay luqadda rasmiga ee dowladda iyo luqadda waxbarashada. 1956 SWL waxay ahayd arrinta ku soo doorasho tagtay 5 qodob bay ahayd. inta kale axzaab waxay ahaayeen reeraad axzaab yaryara wax ajenda siyaasi ah watay ma lahayn. markii halkaa xaaladdu marayso oo loo diiday ninkii ahaa kamaaldiin salaax in nimankii keenaan ayaa wuxuu qaramada usoo jeediyay dhowr qodob. wuxuu yidhi soomaaliya haddii la rabaan in dowlad ay noqon dadka soomaalida waa dad diyaarsan aad u firfircoon awood leh sabool ha ahaadaan reemihi ha u badnaadaan laakiin waa dad wax noqon kara. waxaan anu qabaabay in soomaalida laga caawiyo xagga dhaqaalaha laga caawiyo oo loo soo diro khubaro ka socota bangiga adduunka iyo hay-adaha qaramada midoobay si dhaqaalahooda loo hormariyo. in dadka lagu tababaro beeraha si loo fasho ama loo sameeyo ama loo abuuro beeraha. in dadkan loo sameeyo jidad dhulka soomaalida jidad ma lahayn in jidad magaalooyinka isku xiran loo sameeyo. dadka soomaalida ah in qaramada midoobay hay-adaheeda amni dhaqaaluhu ay deymiyaan lacag ay deymiyaan si loo helo raasamaal soomaaliyeed oo shaqeynaya si loo helo. in dadkan loo sameeyo warshado ha ahaadaan warshado waaweyn ama warshado gacanta oo yaryar ha ahaadaan in loo sameeyo. in dadkan soomaalida la gaalaysiinayo dadkan diin bay leeyihiin diintooday haystaan in laga daayo. in aysan suuragal ahayn in dowladahaas xabashida ingiriiska belgium britain italy kulli ku heshiiyaan in soomaaliya aysan xornimo qaadan inaysan suuragal ahayn arrintaas aysan dhici karin. intaas markii uu tegey ayaa waxay u arkeen dowladihii noocaas ah in ninkan uusan ahayn nin sii socon kara yani nin fahmi kara ma aha. saa darteed waa in laga takhaluso. 17 maarso 1957 ayaa la dilay kamaaldiin salaax oo lagu dilay muqdisho. yaa dilay marka ninkan nin soomaaliya dilay oo markuu dilaya dhowr beri kahor ka yimid baydhabo. markii la qabtay ee meesha booliiska la geeyey wuxuu sheegay in uu ka tirsan yahay xisbiga digil iyo mirifle uu ka tirsan yahay. ayna soo direen cabdiqaadir aadan iyo cabdullaahi mursal oo ka mid ahaa madaxda xisbiga digil iyo mirifle oo aaminsanaa federaalka. waxyaabaha aan ka tegay waxaa ka mid ah kamaaldiin salaax soomaali in federaal laga dhiga ma aaminsaneen. waxaa aaminsanaa inay yihiin dad walaalaha oo kooban oo yar 2 milyan xitaa ma dhalin soomaalidu inay dal mid ahaadaan ayuu sheegay. marka ninkii la qabtay ayaa booliiskii talyaaniga ayuu u warramaya xogta macnaha buuga ku qoran waa saas u fiirso. wuxuu leeyahay cabdiqaadir aadan iyo cabdullaahi mursal oo ka tirsan xisbiga digil iyo mirif ayaa waxay siiyeen 200 oo shilin ay u horumariyeen. 30 kunna waan ku siinaynaa ayay dhaheen haddii aad kamaaldiin salaax disho. wuxuu dhahayaa marka lacagtan aad ayay u badan tahay xaggeed ka keenteen. waxay leeyihiin dowladaha etoobiya ka mid tahay ayaa lacagta kamaaldiin salaax in la dilo bixinaya. mar labaad ayaa haddana la wareystay. markii labaad ee la wareystay wuxuu sheegay in aysan raggaa ka dambeeyin ay soo direen oo asagu dilay. haddana mar saddexaad ayaa la wareystay wuxuu sheegay in raggaas ay ka dambeeyeen dilka. laakiin xaaskii ninka la dilay markii la wareystay waxay tahay cabdiqaadir aadan iyo cabdullaahi mursal waxay ahaayeen labada saaxiib ee ugu dhow ee kamaaldiin salaax lahaa.
waxay labaduna mucaarad ku hayeen talyaaniga ma filayo aniga shaksi ahaan xaaskiisa inay raggaa dileen waxay tiri waxaan filayaa in ay talyaanigu suuro xumaynayaan labadaa nin si ay soomaalida uga aamin baxaan ereygaa waxaa tiri xaaskiisii ayaa tiri halkaas ayuu buugu marka ku dhammaadaa taariikh runtii aad iyo aad u qurux badan oo si fiican dhulka soomaalida uga sheekeynaya ayuu ahaa kabaaldiin salaax oo ah nin soomaaliya oo runtii soomaalida wax badan u qabtay aad ugu soo halgamay kadibna soomaali ayaa dishay suu dooni ahaadee wax aan meesha ka sheegnay waa wax buug ku qoran ma aha wax aniga aan soo qoray ama aan sheegayo ma aha aad iyo aad waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu